waxay isugu jireen baraarujin wacyigelin iyo weliba socod iyo weliba ciyaaro xagga isboortiga ciidanka ilaalada jamhuuriga ayaa qabanqaabiyey ciyaar xagga kubadda cagta ciyaartaasi xagga kubadda cagta ee lagu qabtay loo qabtay ciidanka ilaalada jamhuuriga waxay ahayd mid ka dhacday ama lagu qabtay garoonka ku yaala taliska dhexe ee ciidanka ilaalada jamhuuriga waxaana ciyaartaasi ay iska hor keentay kooxo kamida ciidanka ilaalada jamhuuriga qabanqaabada ciyaartaasi waxa ay qayb ka ahayd toddobaadka qaran ee la dagaalanka cudurka qarnigan ee sidaaga taasoo sidoo kale ciidanka ilaalada jamhuuriga ay hore u qabteen baraarujin iyo wacyigelin ku aadan la dagaalanka cudurka sidaaga oo loo qabtay ciidanka kamid ah ciidamada kamid ah ciidanka ilaalada jamhuuriga waxaana xafladahaasi u joogay oo ka qayb qaatay taliyaha ciidanka ilaalada jamhuuriga lieutenant colonel maxamed jaamac magaalada Carta waxaa lagu qabtay xaflad qayb ka gabagabada toddobaadka qaran ee la dagaalanka cudurka qarnigan ee sidaaga waxaana xafladahaasi ay haayeen kuwo lagu qabtay dugsiga dhexe ee ku yaala magaaladaasi Carta waxaana u joogay oo ka qayb qaatay gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi Carta Caateeye Wacaysa iyo weliba maamulaha dugsiga dhexe ee magaaladaasi Carta waxaana halkaasi loo qabtay dhalinta dugsigaasi waxbarashada dhexe ee Carta wax ka dhigta baraarujin iyo wacyigelin ku aadan la dagaalanka cudurka sidaaga ayadoo ardayda dugsiga dhexe ku soo bandhigeen munaasabadaasi ciyaaro hidiyo dhaqan ah waxaana sidoo kale la qabtay ciyaaro xagga kubadda cagta oo iyaguna qayb ka ahaa gabagabada toddobaadka qaran ee la dagaalanka cudurka qarnigan ee sidaaga oo si aad ah looga maamusay magaaladaasi Carta oo la qabtay intii toddobaadkaasi xaflado kala duwan oo ku aadan ka hortagga cudurka qarnigan ee sidaaga xerada military ee Sheekh Cusmaan loo yaqaano CCO waxaa shalay lagu qabtay munaasabad lagu guddoonsiinayay abaalgudyo ama shahaadooyin qaar ka mid ah ciidamada kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti oo soo dhameystay tababar munaasabadaasi waxay ahayd mid lagu guddoonsiinayay shahaadooyin 17 kamid ah ciidamada kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti oo isugu jiray ciidanka qalabka sida ciidanka cirka ciidanka badda iyo ciidanka jandarmeriga waxaana ay soo dhameysteen tababarka iyagu markaasi lagu guddoonsiinayay shahaada loo yaqaano certificat technique élémentaire mécanicien waxaana munaasabadaasi daadinayay colonel Zakaria Sheikh Ibrahim oo isagu ah taliyaha xagga gaashaandhigga ciidanka qalabka sida waxaana u joogay oo ka qayb qaatay colonel Aadan Ali oo isagu ah madaxa xerada Sheekh Cusmaan iyo waliba taliyaha ciidanka cirka Daahir Aadan Abrar taliyaha ciidanka badda colonel Abdulrahman Sheer iyo lieutenant colonel Salban waxaana ka qayb qaatay sidoo kale munaasabadaasi u joogay saraakiil kale oo kamid ah ciidanka dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxaana halkaasi la guddoonsiiyay abaalgudyo kala duwan ciidamadii ka qayb qaatay tababarkaasi la soo gabagabeeyay shalay sidii aad ku arkayseen horaantii warkayaga daawadayaal waxaa ka furmay xalay guriga ummadda ee caasimadda Djibouti bandhig faneedka kulanka fanaaniinta ee loo yaqaano Festival oo daadinaya munaasabadii furitaanka ra'iisul wasaaraha dalka Dileita Maxamed Dileita waxaana xalay ku jiray barnaamijka oo ku soo bandhigay heeso kala duwan bandhig faneedka habeenkii ugu horeysay kooxda lagu magacaabo Noolays oo ka socota Jamhuuriyadda Djibouti kooxda Shego Bank oo ah reer Soomaaliya laakiin sayid
degan wadanka Canada iyo Jeff Kavanda oo ka socday wadanka Congo laakiinse ku nool wadanka Belgium haddaba soo doontaan daawadayaal markan qaybo kamid ah qaybihii ugu xalada badnaa ee habeenkii xalay lagu soo bandhigay festivalka ee halkaasi lagu furay hortaba hees lagu xusuusanaya ama xusuus lagu muujinayay Allah u naxariistay awaan reer Jabuuti oo geeriyooday awaan Ibrahim Darle heeskina waa kan أنا إذا أحتاج تكايبي waatahay waxa kuwaasi ay hayeen kooxii kala duwan ku soo bandhigay habeenkii xalay toole festivalka waxa socon doona festivalka ilaa iyo 19 bisha December waxa ka socon doona habeen walba si talantaali ah guriga umada iyo golaha saalinka daawadayaal qodobkaasi ugu dambeeyay habeenkan waxa war wixii laga soo gaaray dalka oo kaliya waxa laga tagayaa dhammaantiin bayta naga socota dalka gudihiisa barnaamijka satellite-ka iyo dhammaan aalada internet-ka laga heli karo wararka telefishinka Djibouti نبدل يا من الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمشقوصتها إلى معاكم حتى شخيرة gabadha dibadda joogto ma aha alaabta ay u dir haye marka gabar horeen dambe soconaysay oo ingiriiska tagaysan lahaada ugu dhig duwada waxa weey maxaa weey adduunyada waxa la isku leeyahay imika alaabtu waa qaadayna meedii hashanaga geeyna oo meesha meel aan u hubtida ana wata oo alaabtaasi way gaaraysaa inati gacanteeda
عشان خلاص وحديد تلفون خليه صدن لبيا فرطان هيستدر لي دي عشان قدر